gudoomiyaha xisbiga mucaaradka cadaalada iyo daryeelka Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taageerayaasha xisbiga oo cudurlulaya astaanta xisbigaasi iyo caleemo qoyanaya gudoomiyaha kaga hortagay dowladka magaalada Burco waxayna isla markiiba u soo galbiyeen gudaha magaalada waxayna taageerayaashan kala hadleen barxadda hore ee xarunta dhexe xisbiga oo cudurlulaya magaalada Burco ugu horeynta waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga UCD ee gobolka Togdheer iyo xogayaha hawlaha guud ee xisbigaasi isbedel baynu u baahanahay sixir bararka in la inaga biyaynu u baahanahay musuqmaasuqa in la ciribtiraynu u baahanahay intaaba maanta waxaynu haynaa dawadiisii murashaxeenii madaxweynaha mudane Injineer Faysal Cali Waraabe halkani waa Burco dhammaan waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo taageero bidaysa inay Burco ka heli doonto inuu xisbiga UCD la wareegay taageeradii iyo cududii iyo dhalinyaradii iyo maskaxdii iyo haweenkii gobolka Togdheer waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow gacmo furan gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii waxa halkan maanta inala jooga xisbiga qulaha ee isbedel doonka wadani iyo kulmiye waa isku mid waa mid kaliya ka wadani jooga waa kii kulmiye ka kulmiye joogana waa kii wadani isbedel doonku waa cid isbedel baynu baahanahay dhalinyaro mustaqbal baad u baahantiin mustaqbalkiina doorta maanta waxa inoo yimid xisbigii guusha xisbigii horumarka xisbigii cadaaladda waynu aragnaa labadii xisbi ee kale dalkan aynu u tirinaynay maanta heerka ay marayaan nimanka caawa isku haysta baarlamaanka gudihiisii kuma aamini karayno dalkan aynu leenahay maxaa yeelay dagaal waynu ka daallay dhibaato waynu ka daallay nimanka caawa baarlamaanka hortiisii isku haysta berrita doorashada maxay ku kala baxayaan waxay ku kala baxayaan yaa haya cidina ma hayso wax walbo xun waynu ka qabanaynaa dalka xisbi aan qabiil lahayn xisbi Soomaalilandara xisbi kuwa maqan doona kuwa joogana ilaaliya ayaynu haysanaa waxa halkaas ka hadlay gabagabadii gudoomiyaha xisbiga UCD Injineer Faysal Cali Waraabe waxana hadaladiisi kamid ah waa Burco waa xareedii Soomaaliland waa toobaxay xareedii Soomaaliland Burco sharciga oo horeeya ee sameeyna waxa weeye markaan dal qabanno dhulkan ku soo cilina gacanta dawladda dhul dambe oo la iska qaadqaadanaya ma jirto maanta dawladdu dhul ma leh waaniga wata maanta sayladii la iibinayo la doonaya sayladii meesha laga saaraa muddada 5 sano hore waxa doonaya ilaa iskuulka dhaxeena ka dhigna hadaa ilaa bilaash ka dhigna doonina 5 damana insha Allah ilaa secondary-gan dhigna maaha kuwa imka bilaashka ee kulmiye ee daaqada leheen qaar daaqada leh meel lagu ciyaaro leh ka walaalayaan dawlad nidaam leh oo sameeyna walaaya oo sharciga leh oo leh sharci baan sameeyna sharci insha Allah taala qof sharci ka sareeya ma jirto khaatumana waa soo dhameeyna insha Allah taala Soomaaliland wala mideynaya inagoo mid ah ayaynu gelinaa insha Allah taala walaalayaal doorashada gelina walaalayaal maalinta doorashada bisanka u qabta shuushowba Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga SAB magaalada Burco